Asxaabay isniin wanaagsan. Aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin. Dadkii cirka ka soo noqday waxay yidhaahdeen waa gaar adigoo wax foorarin kara in lagu foorariyo. Waxaan ka yaabay maxay maxay jibtu mooyaha uga qiimo badan tahay waa sababtan badanaa isweydiiyo. Sidee xiriirka loo tumi karaa haddii aan tib iyo mooye labadaba la haysanin? So, taas waa fani aada markaa bal taa si fiican uga fekera. Waxa tibta ka qiimo badiyey mooyaha. So, Soomaaliya dib isugu laabtaan indhaha dadkan cirka ka soo noqday ee idin waalin. So, hadduu qofku mooye u baahan yahay, maxaa ka khaldan? Baahi baa mooyaha loo qabaa. Hadduu qofku tib u baahan yahay, baahi baa tibta loo qabaa. Haddaa qof weyn wax garanaya taxan ka hadlaya waa fahmi kara. Ayaa weligaa lagu sheegay inta lagu foorariyey in wax kuu dhiman yihiin. Qofka ku imanaya ku foorarinaya oo ku baahan yahay taa ogo markaa baahi loo baahan yahay buuxisay markaa booskaagu waa muhiim. So, way salaamayaa dhammaantiin. Kor isu qaad baan ku dhahay. Hoos lagu dhigo waan jecel. I love you.